السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo casharkeenii biology secondary form 1 chapterka koowaad casharkiisii saddexaad. casharka maanta waxa uu ka bilaabanayaa characters of living things, astaamaha noolaha. fadlan dhegeystay haddii aad ku cusub tahay channelkeenii kororsa aqoon subscribe garay oo furo gambaleelka si aad u hesho wax alla wixii la soo geliyo. page-keena follow ku sameey oo like iyo share inoogu dadaal si aynu hore u socono. dhiirigelintaaduna waa inoo muhiim. astaamaha noolaha ayuu casharku ku saabsan yahay. nooluhu wuxuu leeyahay astaamo fara badan oo lagu yaqaano oo uu kaga duwan yahay noolaha. astaamaha noolaha waxa aan kusoo koobaynaa 10 qodob. cellular organization, noolaha wuxuu u nidaamsan yahay qaab seelal ah. nutrition waa quutaa. metabolism, process la yiraahdo metabolism ayuu leeyahay noolaha. growth wuu korayaa. excretion qashin saar buu sameynayaa. reproduction taran buu sameynayaa. respiration wuu neefsanayaa noolaha. and gaseous exchange hawo ayuu isweydaarsanayaa noolaha ama hawo kala bedelasho. movement dhaqdhaqaaq ayuu sameynayaa noolaha. irritability xasaasiyad buu leeyahay ama dareen uu wax ku dareemo. life cycle meerto nolol ayuu leeyahay. marka casharkeena maanta ilaa 3 qodob baynu aan dul istaagaynaa. qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa cellular organization. wuxuu u nidaamsan yahay nooluhu qaab seelal ah. noolayaasha oo dhan hadday ahaan lahaayeen dhir ama xayawaan waxa ay ka samaysan yihiin waxyaabo ilma aragta ay ka samaysan yihiin oo la yiraahdo cells, unugyo. cellsku waxaan ku qeexi karnaa are the basic structural unities of living things. waa waxyaabaha aas-aaska u ah keliya ee uu ka samaysan yahay noolaha uu ka samaysan yahay. shay kastoo noolo ah waxaa base u ah cell ayaa base u ah. waa unug weeye, waa ilma aragto weeye. noolayaasha qaar waxa ay ka kooban yihiin hal cell, single cell bay ka kooban yihiin, sida ameba oo kale. amebada oo cudurka keenta, sandariyada keenta ama axal dhiiga keenta, iyo bakteeriyada oo kale waa hal cell weeye. hal cell bay leeyihiin ama hal unug bay leeyihiin. kuwaas oo kale waxaa la yiraahdaa unicellular organisms, noolayaal hal cell ayaa la yiraahdaa ama hal unugley ah. si kastaba ha ahaatee noolayaasha oo dhan waxa ay ka kooban yihiin seelayaal badan bay ka kooban yihiin. noolayaasha intooda badan waxa ay ka kooban yihiin seelayaal aad u badan. tusaale waxaa ka mid ah mango, cambaha ka mid ah, butterfly, balanbaalista ka mid ah, elephant, maroodiga ka mid ah. these are called multicellular organisms ayaa la yiraahdaa. noolayaal unugyo badan leh ayaa la yiraahdaa. marka qaybtan waxaan ka faa'iideynaa 2 qodob oo ah nooluhu in uu ka samaysan yahay seelal, seelashuna ay u kala baxayaan unicellular organisms iyo multicellular organisms, kuwa hal cell ah iyo kuwa seelal badan ah. qodobka labaad ee noolaha lagu yaqaano astaanta uu u leeyahay waxaa ka mid ah nutrition. noolaha waa uu quutaa. nutrition waxaa la yiraahdaa it is the process of feeding. waa processka quudashada ayaa la yiraahdaa nutrition. noolayaasha oo dhan waxay u baahan yihiin cunto, ay u baahan yihiin saynu ognahay. waxayna ka helayaan energy bay ka helayaan. howlaha oo waxweyn ay qabanayaan oo dhan ee kala duwan ayna ku samaysanayaan. marka cuntada xoolaha uu cuno aad iyo aad bay u caawisaa. waxay ku caawisaa koriinka iyo waxa weeyaan dayactirka jirkiisa. cuntooyinka waa 3. qaarna waxa weeyaan jirkay dhisaan, qaarna jirka ay dayactiraan oo cudurrada ay kala dagaalamayaan, qaarna energy bay siinayaan. xayawaanadu marka cuntada waxa ay way helayaan, cuntadoodii way helayaan. qaab waxay u helayaan grass oo caws ahaan bay u helayaan. grains waxay u helayaan badar ahaan bay u helayaan. caano ahaan bay u helayaan. rooti ahaan bay u helayaan. hilib ahaan bay u helayaan. ukun, khudrad iyo fruit. xayawaanada noocaas oo kale ah marka cuntada diyaarsan cunaya oo aan cunto ayagu diyaarinayn nafsad ahaantooda waxaa la yiraahdaa heterotrophic ayaa la yiraahdaa. quutayaal baa la yiraahdaa. si kastaba ha ahaatee dhirta cagaaran cuntadeeda iyadaa diyaarsato. waxayna ku diyaarsataa process la yiraahdo photosynthesis ayay ku diyaarsataa. photosynthesiska
waa process dhirtu waxa weeyaan ay marto oo gaar ahaan geedka markuu cuntada sameysanayo oo caleenta ayaa lagu sameeyaa cunto sameynta ay qaabilsan tahay caleentu waxayna isticmaalaysaa carbon dioxide hawo la yiraahdo oo atmosphere-ka ay ka qaadato dhirta iyo nutrients iyo waxay isticmaalaysaa macdan carrada hoosteeda ay ka hesho water biyo iyo iftiinka qoraxda intaas markii waxa weeyaan dhirtu ay hesho afartaas shay cuntadeedii way sameysanaysaa caleenta waxaana lagu magacaabaa processkaas autotrophic ayaa la yiraahdaa soo saarayaal baa la yiraahdaa dhirtu wax bay soo saartaa qodobka saddexaad ee aan darsigan kaga hadlayno wuxuu noqonayaa metabolism waa hawl ka dhacaysa seelasha dhexdooda waa falgal kiimikaad weeye oo jirka seel bani aadamka ka dhacaya ama xayawaanada ka dhacaya ama dhirta ka dhacaya ama noolaha oo dhan ka dhacaya weeye metabolism baa la yiraahdaa metabolism haddaynu qeexno is the sum of total chemical reactions that take place in the cells waa wadarta ama isugeynta falgalada kiimikaad ee ka dhacaya seelasha dhexdooda unugyada jirka bani aadamka dhexdoodii waxa ka dhacaya oo falgalo ah ayaa waxa lagu magacaabaa metabolism la yiraahdaa metabolismka waxa weeyaan laba loo kala qaadaa falgalka kiimikaad ee seelasha ka dhacaya labo catabolism iyo anabolism mid burburin ah iyo mid dhisid ah catabolism waxa la yiraahdaa xayawaanada ayaa isticmaalo inta badan oo seelashooda ay ku sameysanayaan oo waxay tahay moleculo waaweyn ayaa waxa weeyaan la jajabinayaa waxaana laga soo saarayaa waxyaabo fudfudud ayaa laga soo saarayaa molecuulada waaweyn waa cuntooyinka qofka uu cunay weeye ee dheefshiidku ay mareen ka bacdi seelasha loo gudbiyey halkaasa lagu sii burburinayaa oo lagu sii gubayaa cuntadii seelasha dhexdooda markaasa waxa laga soo saarayaa waxyaabo fudfudud sida respiration neefsasho iyo wax la mid ah processkaas ayaa la yiraahdaa catabolism ayaa la yiraahdaa waa chemical reaction waa falgal kiimikaad large molecules ayaa la isticmaalayaa moleculo waaweyn protein baa lagu sameeyaa waa la jajabinayaa simple substances waxyaabo fudfudud ayaa laga soo saarayaa sida neefsashada processkaas ayaa la yiraahdaa catabolism ayaa la yiraahdaa tusaale waxa uu ah respiration neefsasho midka labaad waxa la yiraahdaa anabolism waa dhisid weeye asagu waa falgal kiimikaad weeye asaguna seelasha dhexdooda ka dhacaa waxaa lagu sameynayaa large molecules la sameynaya marka moleculo waaweyn baa la soo saaraya from simpler substances waxyaabo fudfudud oo la aruuriyay ayaana laga diyaarinaa kaana waxaa la yiraahdaa anabolism la yiraahdaa dhirta ku shaqeydo waa processka hadda aynu nutritionka markaan sharxaynay aynu kaga soo hadalna weeye sida photosynthesis-ka ka mid ah oo geedku waxa weeyaan wuxuu qaadanayaa ama dhirtu waxay qaadanaysaa biyo iyo macdan carrada hoosteedii laga helo iyo iftiinka qoraxda iyo hawada carbon dioxide-ka ay qaadanaysaa waxaas yaryarka inta la isu geeyo ayaa ay wax ku dhisaysaa oo geed dhan oo cagaaran oo ubax leh oo mireynaya ay ka soo saaraysaa processkaasna waxaa la yidhahdaa anabolism waxaan filayaa in la fahmay oo waxa weeyaan si kooban baan darsiga soo gudbin doonaa si videoga inoogu yaraado fadlan dhegeyste share garay oo la soo casharadeenii waxaan idin rajaynayaa in aad guuleysan doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.